soo dhawaada asxaabta mar kale iyo muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa 1x speed ayaan uga hadlaynaa ugu horreyn waxaan sameynaynaa applicationka aan soo furina ama applicationka ayaan soo furina si aan u furno waxaan sameynaa qaybtan ugu horeysa oo ku oran tahay registration halkaasaan ka dooranayna halkaas markaad dooratid waxaa kuu soo baxay optiono kala duwan waxaan ka dooranaynaa optionka ugu horeysa oo ay ku qoran tahay in one click ayaan dooranaynaa halkaas markaad dooratid waxaa kuu soo baxayo meel ay ku qoran tahay shilin Soomaali halkaas waan bedelaynaa waxaan ku bedelaynaa dollar aan ku bedelay sidoo kale promo code aan gelinay sidoo kale halkan jeega saari doonta sidaan step ay marayna halkaas soo furayna kadib waxaan ka dhigaynaa dollar aan ka dhigaynaa halkaas dollar markaad dooratid qaybta promo code ka imaanaysa waxaad gelinaysaa 2526 aad gelinaysaa sidoo kale halkan jeega saaraysa kadib okay aad leedahay okay markaad aadid waxa kuu soo baxayo iwaanka aad samaystay wuxuu kuu soo saari doonaa ID-gaaga iyo passwordkaaga kuu soo saari doona ID-ga iyo passwordka copy leenahay halka markaad joogtid waxaa kuu soo baxayo qaybtan ugu horeysa oo ah kan oo userka ama ID-gaaga ah iyo kan oo passwordka maxaa sameynayna qoraalkana copy yaa leenahay copy markaad dhahdid waxaa ku copyaysan kartaa ama ku keydsan kartaa si uu kaaga lumin userkan iyo passwordkan gmail-kaada ama meelaha wax lagu keedsado anaad copy yaa leeyahay mar rabo meel kale inaa kaado kadib waxaan leeyahay next aan leeyahay kadib waxaan dooranayaa qaybtan ugu hooseyso oo ay ku qoran tahay next aan dooranaa next markaan dhaho waxa ii soo baxaya qaybtan ugu horeyso oo ah halkan oo userkii laga rabay iyo halkan oo passwordkii ah si automatically asaa galaayo marka kadib waxaan leenahay login aan leenahay si automatically wuxuu geyn doonaa dashboardka shaashadan ayuu geyn doonaa oo qaab noocan oo kale ayay kugu soo bixin kadib waxaad dooranaysaa saddex diirmood oo geeskan ayaad ka dooranaysaa oo ah qaybtaas ayaad dooranaysaa halkaas markaad dooratid saa u jeedin kor waxaa kaaga muuqdo ID ayaa kaaga muuqda sidoo halkan waxaa kaaga muuqda dollar ama lacag ay ku sawiran tahay oo zero ah akoonkeena hadda waa zero kadib waxaan isku soo laabanayna next video anigoo lacag ku shubnayno oo aan game ciyaarayno aad u mahadsantahay